qof bin aadam ilaahay abuuray oo duulayana lama arag quraankana lagu ma sheegin rasuulkana meel kuma sheegin marka lama dhihin karo waa qurufaad aad adigu aaminsantahay ayad quraanka maxay wafadalna bacdhum ala bacd dadka anaga kala sareysiinay midda ma hadda waa duulaysan ma fadalna duulis kaliya ma xasan hadda iska soo qaadin kala jirta oo waxyaabahaas oo dhan waxay u arkaan inay bidcad tahay in dadka haleynaysan in dadka waxa weeyalko diintii iyo shariicadii kala leexateen waa yeelko laakiin waxaan ku sheegayaa inaysan ku waxaan ku jawaabinaa daliil ma laha sida tahay sheegtay sheekh maxaa u booqataan qof noocaas oo kale ah oo awliyaa ku sheegtaan markuu dhinto siyaaradiisa qabrigiisa culimada qaarna ay ku ictiqaadaan ay dhahaan in qof dhintay aad qabrigiisa booqataan ay tahay mid aan diinta iyo sharciyada meel ka soo gelino qabrigiisa neef xoolo loo qalo oo la weyneeyo oo yiraahdo Sheekh Jibril Jeelani iyo Sheekh Fadelo waxaas masaxba waa sax haddaan ku ilaahdo ka waran rasuulkii sameeyay sallallahu alayhi wasallam meel ku sameeyay ma adu kitaabta mid daragtay xadiis kaamiraha markuu dhiyeen cilmigii baa uu kala gureynaa anagu وأيه هدي الأسبوع فوق إن رمضان قاركود أي سنكجرين سنة رسول صلى الله عليه وسلم ديار موته إن كتكتان رمضان. دحين أنا سقاسا وهابلينا ولي بقى أنا وحن جروبنا الجسد بارستودي لكوي كان وحن كان يستشهدوين إن ودتك علماء قصة قبضة مقعدة كالديسان سمايستا تلوين بدن هنا مدحونا كسيو بإذن الله الكريم أقولنا همبليه ومرتبين مدحوني وسقوا كده وكم قبنا نصيب جرة إيمت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي ونكسر داود كسر دوادة ورئيسي مانتا وحى مرتنا وقع الشيخ حسن بدر الدين أو كمدة علماء قادرية شيخ وحى وسوق جاري لوان مجال الجرو عاصمة بنتلان. تاني بربركي دولتي دحية دلك سوماليا مركي دولتي دحية ماشي كبحضي عندها بالشدة وحى علماء ومروا البؤتها إن بدبادين يسودوا كل سنة تبليحين بالشدة الصومالية العلماء ورثة الأنبياء سيد النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. واتهاي شيخ بدر الدين كسودوا استوديو ملك ميديا مركوري. ودو هاي حسن هيكل يا بهذا ملك ميديا وآدم نقوم هذا علينا sida sharafta iyo maamuuska la igu soo dhaweyseen xafiiskiina quruxda badan dhammaan bulshooyinka ku xiran ama reer Nugaaleed ama reer Garowe khaasatan waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin waana idinka mahadcelinayaa wareysigiinan iyo sida Sheekh Badruddin dad badan waxa ku yaqaanaan Sheekh Duulay anaaneystada dad badan waxay soo diinayaan sababta uu anaaneystas ula baxay Sheekh maxay tahay waa tahay Sheekh Xasan Raawo wadi xasaaykel walaal masaladaasi dadku horta aanu lama bixin dadku iyaga ay bixiyay oo mas'ala aan ka hadlay bir dhexdiya oo ka hadlaysay awoodaha gaarka ah Ilaahay uu ku maamuso awliyadiisa ama adoomihiisa qayb kamid ah oo Ilaahay ku maamuso ayay ahayd mas'ala aad cilmigeedu badu yahay shaasica weeye اللهم صل على سيدنا محمد waxa ay leedahay dalaa'ilo iyo cadeymo aad u waaweyn waxa ay dhacday masalada duulistu marar kala duwan saadarta dadkii oo aan masaladan wax hore ka haysan iyo dadkii aan cilmi badan lahayn iyo dadkii aan warka ka hayn ayaa dood badan ka dhaliyay oo arrin badan ka keenay saas markii dambena igu dhigtay Sheekh Duulay anigii weeyaan laakiin masaladu aniga markii hore ma hayna waxay ahayd mashaayikh kale oo Soomaaliyeed iyo ila waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam ya asxaabtii nabigaba qayb kamid ah arrin ka dhacay oo ansaxay waxa jira asxaabta nabiga kamid ah oo la oranayay kitaabta xadiiska Quraan Jaafar ad-Dayyar Jaafarkii duuli jiray ama Jaafarkii duulaha ahaa Jaafar Duulaye ayaa jiray oo saxaabiya marka in ila waqtigii saxaabada soo bilaabatay mashaayikh Soomaaliyeed qaar kamid ah oo ku cadda in Jaafar uu duulay ha xagee waxay ku caddahay Bukhariga Muslimka kitaabta ummahatisitaha xadiista nabiga wariso oo dhan bay ku caddahay Jaafar dheer nabiga waa ka waramay sallallahu alayhi wasallam sheekh qof bin aadan u duuli kara waa sababaha ugu badan ee dadku isweydiiyeen bin aadanka waxa ay quraan Ilaahay oranaya inna Allaha yakhluqu ma yashaa wa yakhtar Ilaahay wuxuu doono abuuraa isagoo xigmad doono kale sidoo doonuna u doortaa nooca ay u duulayaan xayawaanka kale duwan Ilaahay oo duulista oo uu sakhreeyo Ilaahay baalash siiyay ha ahaadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kuwa kale
oo iyagu baalal la arkaya aan lahayn haddana duula laakiin saxaabiga isaga Jacfar Dayaarada kugu noqdo rasuulku wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam isagu inuu laba baal lahaa laba baal oo rasuulku leeyahay ra'aytu al-barihata rasuulku inankiiba la hadlaya oo saxaabigu dhalay wuxuu leeyahay ra'aytu abaka bil-barihata aabaha baan xalay arkay yadiiru macal malaa'ikta la duulaya oo lahu janaahayni laba baal leh laakiin waa riya ahayd markaas rasuulku waan arkay buu leeyahay sallallahu alayhi wasallam laakiin dhabma marka manaam laga hadlayo ama rasuulka leeyahay baa yiri sida sallallahu alayhi wasallam ambiyada manaamkooda iyo cayaankooda waa sawaanba ama riyaha ku arkaan micnihi sida dadka kale way ka awood badan yihiin riyadu waa dhalanteed laakiin waxa jira riyada waxa jira imka eedaanka kale riyu ku salaysan yahay saxaabiga arkay iyadoo la adimeeyay nooca loo adimeeyay imka salaad dadka loogu yeero awal dadka waxa la oran jiray salaada soo kaca asxaabiga manaam ku arkay nabigu uu sheegay wuxuu saasan arkay dadka lagu yeeriyo ashhadu an la ilaha illallah hayya ala salah hayya al falah allahu akbar hayya ala marka rasuulku oranaya waa saas ahaan marka amriyaha atam cayaan haate waa arin rasuulku sheegay ka sugnaaday rasuulkana ambiyadana wuxuu ugu bilaamaaba waxyigu markooda hore qaab riya ah oo marka hore manaam ah ayuu ugu bilaamaa waxba la soo tusaa waxba soo arkaan kadib markay xamil karayaan inay life u arkaan wixii manaamka ay ku arkayeen ayaa waxyigu u bilaamaa waxyigu wuxuu ku bilaamaa riyo iyo manaam ku bilaamaa marka riyo iyo manaam hadii ay tahay waxa mana awaana waxba ka jirin Bukhariga iyo Muslimka iyo dhamaan waxa ku wada cad marka quraanka sheekhu miyeelan dad badan oo dhima ah oo ka aragti duwan baa jira oo sida u dhigaysa hadalka aysan u arkin inay sax tahay qof bin aadam ilaahay abuuray oo duulayana lama arag quraankana lagu ma sheegin rasuulkana meel kuma sheegin marka lama dhihin karo waa qurufaad aad adigu aaminsantahay asoo masaladaas dad badan oo waran dadku kala aragtid wanaan kana laakiin marka la yiraahdo waxani waa xadiis ama waa aayad aqligii lagu cabiriyay bini aadamka aysan isagiina ka baxsanayn laakiin caadi ahaan wax badan aysan hayn population badan wax ka dhacay maaha waa wax dad naadir ka dhacay waxa la yiraahdaa hadii mas'alo micni dadka wax fara ku tirsan dadka qaar ka dhacay jira waxay ku tirsan waxa la yiraahdaa khawaariqul caada caadadii sida dadku inay laba lugood ku socdaan baa lagu yaqaanaa laakiin waxa jira inay dadka qaar ka mid yihiin ay duulaan oo dadka qaar ka mid yihiin ay bartan iyagoo jooga Madiina iyo Makka waxa ka dhacay arkaan hatta gariga wada joogtaa oo way ka sii weyntahay Soomaa in aad bartan jooga aad Makka iyo Madiina waxa ka dhacay aragto bal hadda waxa weeyaan Sayyid Umar ibn al-Khattab Sayyid Umar waxa la yiraahdaa waaqica cadaan way dhacday oo Bukhariga iyo Muslim kitaab taariikhda ku cad in dahabiga iyo siirada calaam nubulaha iyo ay wada warinayaan halka soo tagay may mutigi soo tagay riyal riyana ma may soo jeeda isagoo soo jeeda oo minbarkii saaran oo khudbadaynaya ayaa saariya shaam buu jooga markaa Sayyid Umar ibn Khattab oo markaa amiirkii muuminiinta uu khudbadaynaya waa maalin jimcaha saariya ciidanka ula socdeen Room iyo Furs bay ka dagaalameen markaas wuxuu arkayaa isagoo barta taagan waa waaqicaadi iyo cadaan in asxaabtii dhabarjibin lagu sameeyay kadib wuxuu oranayaa qaa'idkii wati ciidanku la hadlayaayo يا صاري الجبل صاري وحق بورته iska eega hadalkiisina way maqleen asxaabti hada waxaan shaam iyo furus bay kala joogan waa laba dal aad u kala fog waaqada waa la qoraa Sayyid Umar hadda waxa la weydiiyay arag maxaa wuxuu anigu khudbad u taagan baa waxa Ilaahay tusay asxaabti dhabarjibin lagu sameeyay kadib waxaan war buurta iska gaaro dhabarjibintii iska gaareen way ku guuleysteen asxaabtu markay soo noqotay waa la weydiiyay waxay yiraahdeen maalinta noocaas taariikhda noocaas jimcaha waqtiga noocaas waxaanu maqlayn codkii Sayyid Umar oo leh war xagga buurta iska jira saari xagga buurta kadibna buurtii baanu iska jirnay sidii baanu ku guulaysan marka iyagoo bartan jooga in meel fog wax laga arko haddana codkaagii on microphone iyo kaamiradan wax qaada iyo mobile wax fudaydiya uusan jirin in live inta daawatay kadibna codkaagiina loo geeyo ay kadib ku dagaalkii ku galaan ay ku guulaystaan waxay ka mid tahay waxyaalaha naadirka ah ee dadka ka wada dhicin ninka marka saas sameyn karaya Ilaahay awoodda siiyay maxay ku tahay inuu duulo oo ka qayb galaba sheekh hadda waxa anaga iyo bulshada ku daawanaysa naga dhaadhicinaysa in qof bini aadana uu duuli karo talahaan aniga hadii aan hadda miiskan computerka idul yaal hadaan dul istaago oo ka soo boodo ama dabaqan korkeen ah hadda wareysi ku qaadan ka soo boodo aad dhulka ku soo dhacay waxa laga ogeerana jabo ama dhabar ka jira meel ka jiro maxaa u duuli way rasuulki sallallahu alayhi wasallam waaniga kule arin marka la qiimeynayo waxa lagu qiimeeyaa shariicada waliba la joogo marka shariica laga hadlayo afar arin baa wax lagu qiimeeyaa masaladaasi xadiisi aayad cad ma leedahay
وشواهد بالي هذا وحياله wax loo dilishado quraan iyo xadiis masaladaasi ijmaac maxay ka yiraahdeen Allahumma salli ala sayyidina Muhammad culimadu maxay ku ijmaaceen masaladaasi qiyaas ma leedahay quraan iyo xadiis iyo ijmaac iyo qiyaas waa afarta quraan ku soo arooray ama xadiis ku soo arooray oo masaladaas ma leedahay ama ijmaac culimadu waxay isku raaceen yiraahdeen waa sida ma leedahay ama qiyaas oo ah mas'alada lamida ma la haya ama culimadu ha sheegaan ama quraanka ama xadiisku ha sheego marka mas'aladan xadiiskiina waa aniga kaaga keenay Jaafar Dayaar saxaabi duulayay oo rasuulkiina uu duulayay oo waliba riwaayad badan ku soo arooriya quraankiina waxaan ku hayaa mid kaba si ajaa'ibsan oo mucjisooyin karaamada oo nabi ka dhicin oo rasuul ka dhicin in qof bin aadam aad bartaadan jooga imika alaabta alla xamar miyad soo qaadi kartaa xasan de wala quraanka bay ku taala qof bin aadam oo rasuul nahay nabi nahay soo qaaday sida qisatu suuratu namal ku taala waxa weeyaan saxaabi ma laakiin waa wasiir Suleymaan nabi Suleymaan wasiirkiisi weeyaan rasuulna ma nabina ma nabi Suleymaan baa oranaya ayyukum ya'tun bi arshiha ya balqis arshigeeda ii keenaya shaan buu jooga iyaduna ardul yaman tan bay joogtaa ya arshigeedii soo qaadaya waa shay culus oo jawhar iyo dahab iyo dheeman qaaliga ka samaysan ifriid baa wuxuu oranaya waxyaalaha ugu xoog badan makhluuqaadka Ilaahay kamid ah ana ciidankiisa cid walba kamid ah nabi Suleymaan wuxuu nabi Suleymaan kamid ah afartii caano kala qabsatay nabi Suleymaan wuxuu oranaya ii keenay arshiga ifriid ku oranaya gelib baan ku keenaya ana atigu bi qabla an taqum min maqamika waxaan ku keenaya gelib عشان بركمية وحويان عفريت oo noocinka kamid ah xoog badan wuxuu oranaya waxaan doonay wax ka degdeg badan cid ka degdeg si degdeg oo keentay macnaheedu laba dal baana laga soo kala qaadaya shayga culays kale wala ladii indahu ilmun min alkitab wali awliyad ilaahi kamid ah oo rasuulahay nabinahay oo awood bin aadanka lamida ilaahay awood siyaada asiyay baa wuxuu oranaya ana atika bi qawl an yartada ilayka darfuka ana kugu keenay albiriqsi adigu imika in rahno weeyaan alaabta alla xamar albiriqsi baan ku keenaya وبعني واحد لنا سوي سكريبت كرس عنو كم سو قاعد كري كرو دحده أذي أيين إنه البريكس وحكي سو قاعد كري إسنا حمر أو كلا أو كم كيلومتر أيو كجا سو قاعد البريكس من كوكينيا البريكس هو أمسا وين أنت شل سوق بطل كلا خاض سيدي بونا كوكينيا وحكوا جوا مكان تدكوا سويدين يا سماه سوق سورو بين أود نوع عصيشوا نبي جيبات شوجا نبي لما يسوق رسولنا ما يسيق بكتشوا بيبا وحيري هذا من فضل ربي وسيادة إلهي أنا قدرت كيديري دتك إلهي سوى وضسيمي بعدنا كلا سيادة اللي يهين ده أذوق واحد شدد أذوق حدير تاي تعال كمركب مجرد أفصل أسوق على أو علماء دين قادرية ده كجرا وشدا كان شيخ أنا كبر من تاريخ الشيخ يوسف ابن ماما اللي يلعبه أوجي سن الشيخ بيونس لورني شيخ ماما wuxuu sheekh Biyoonis sheekh aan ka waraminay waa awowgiis sheekh Yusuf Maame taariikhdan ka waraminay anigana awowgaya marka awowgiis ilaa 3-4 meelahaas awowgiis isaga 8-5 meelaha ugu tagay weeyaan adoo ana laakiin dhowr 10 ugu tagaya awowgaas sheekh Biyoonis la oranayay oo sheekh barkhalay waqtigiisii ahaa laqoon taariikhdiisa 666 hijriyada meelaha ayaa duuli jiray oo taariikhda la qoray waa sheekh Soomaaliyeed oo haddana ku aasan gobolada waqooyi meel la yiraahdo Wadaamago ayuu ku aasan yahay dariiq ku leeyahay rag badan baa jira hadda dadka wareysatid awogaaga koowaad awogaaga labaad ama awogaaga saddexaad waxa laga warramaya dhacdooyin ama awogaaga koowaadba dhacdooyin dhacay laakiin dadkan kale oo Ilaahay qofkan ayad quraanka maxay waa fadlan bacdhum ala bacd dadka anaga kala sareysiinay midda ma hadda waa duulaysan ma fadlan duulis kaliya ma xasan waxay taraysaa ay ku darajada iyo qof walba wanaagiisa wuxuu shaqeystaa aakhirada u shaqeysto way ayay darajada waxay keenaysaa in awoodan bini aadanimada ay wax dheerisiiso imika ninka madaxweynaha iyo adigu maskuuteetal baatiin سو إلهي واحد منك وعودوا اللي هي مسؤولية دي باسم أسود عود كلا بني آدم يجوا دتك يجوا ود بني آدم عود إسدري وعودوا اللي إنه يا حسن على صاحره سيقول لك صاحب بدون اللي برتا سايسا خاصة حسنات حسنات ده إلهي ببحية سماها محيط عيد القرآن كده تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء إلهي بوحن بحنية ما أها أولياء اللي وش يجيا مثل الأولياء القرآن كإلهي كجور رمي صدح بقول يأفري تمام ولي وح كبدن أو نبي نهاين رسول نهاين أو ذا دت كان إليه أو ذا كب حسن لها هذا ندت كلا أبور أها أي قرآن كجور رمي كرامة لي هذا هدي قف بن آدم أول لي ما ذا أول ذا كب حسن كرامة لي هذا كتاب تاع قريس إمام يضر دم حتى وذا دين وهابية أي مسألة إنه وافقسن كلا يعني الله من كأرك تدوين يمكن سيدنا محمد درلو كلا وذا قيد
masalada duulista uu waafaqay Soomaaliya waa taawatan malaynaya xogayri wuxuu yiri masaladaas waa waadax awliyada iyo dadka bini'aadamka Ilaahay uu abuurtay awood uu isdheeraysiin karaa sida isagoo Sayyid Umar buu soo qaatay kan kale Aasif ibn Barkhiya la oran jiray waliga ah yiri waxaan ka soo qaadaya Bilqis baan arshiga Bilqis ku soo qaadaya oo soo qaatay wuxuu ka warramay Sayyid Umar oo Shaam isagoo jooga furus waxa ka dhacaya barta ka arkay waliba haddana taar u diray oo la iska jira oo u digaya waxaas dhan buu ka warramay wuxuuna waafaqay in ay dadka Ilaahay awoodiisa is dheeraysiin karo awood aysan lahayn marka haddaad iska soo qaadin kala jirta oo waxyaabahaas oo dhan waxay u arkaan inay bidcad tahay in dadka haleynaysan in dadka waxa weeyalko diintii shariicadii ka leexateen waa yeelko laakiin waxaan ku sheegayaa inaysan kuwaas jawaabaysaa waxaan ku jawaabinaa daliil ma laha kuwaas yaa mashaayikhdoodii bi khilaafayaan mashaayikhdoodii waa masaladan taageersan ogol waxa dhacday iska daa taas inay soo nooleeyeen bini aadan iyo xayawaanba sida imka Bukhari iyo Muslim ku qoran saxaabi tameerkiisu ka dhimanayo oo faras buha oo soo amaanaystay oo dhan Ilaahu ha igu kashifin markuu nafta ka baxday ogaaday Ilaahu amaanada waxaan ku gudamahay ha igu kashifin oo dib soo noolaaday oo Ilaahay awoodiisa ku soo nooleeyay waxa jira kitaab dhan oo Ibn Abi Dunya leeyahay man aasha ba'da al-maut dad intee dhintay dib Ilaahay u soo nooleeyay oo kadib warramay oo noolaaday oo duca qof waliyo saalix ku noolaaday inaan hooyadiis kaliya ay dhashay kitaabkaas ku taala anu waxaan sheegayno waa wax kitaab ku qoran ama xadiis leh ama aayad leh ama nas leh ama ijmaac ma aha micni markaan ku leeyahay masaladaas waa sida ala hasbi ra'yi maaha ka iga ra'yiga duwan waxa marka meesha ka saaraya waxaan daliil buu leeyahay adigu daliil mu haysaa marka cidii nagala niqaashaysa waxaan leenahay fariinta fadal mashkuuran masaa'isha ama duulisa noqoto ama bini'aadamku in awood dheer yahay noqoto cidii daliil u haysa حتى وإن كان حسن وهيك وحاول تقاسنتين أولياء أو يا أولياء وحا أولياء اتكسوا إلهي أولياء كليهم إنما وليكم الله والذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا بعد القرآن أحد إلهي بولي إني رسولك ولي إني كو ألي نبي رمي بأولياء إني آيات القرآن كوحي لهي الذين آمنوا كان أولياء وحويان ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أولياء وحي إلهي كل شيء كوا إلهي دبوا عبسده كوا عن الدنيا آخرتهم عن عبس لهين كوا إلهي دبوا ونوع عبسده وحكى عن كعبسنين الذين آمنوا كانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا أولياء وحلوي قانا أبديا بشارك كل يهينوا dadka dhan baa uga marxaadka Ilaahay bal waqaf wanaagsan inuu qofkaas waqaf muumina waqaf wali Ilaahay Subhanahu wa ta'ala dadka Ilaahay baa uga marxaadka caya qofka Ilaahay uu wilaayada siinayo dadkiisina ku dhex jiraan qaar la yaqaano iyo qaar aan la aqoon ba awliyadu way leeyihiin okay hadii sidaa tahay sheegtay sheekh maxaa u booqataan qof noocaas oo kale ah oo awliya ku sheegtaan markuu dhinto siyaaradiisa qabrigiisa culimada qaarna ay ku ictiqaadaan ay dhahaan in qof dhintay aad qabrigiisa booqataan ay tahay mid aan diinta iyo sharciyada meel ka soo gelino qabrigiisa neef xoolo loo qalo oo la weyneeyo oo la yiraahdo Sheekh Jibril Jeelani iyo Sheekh Fadelo waxaas ma sax waa sax haddaan ku ilaahdo ka waran rasuulkii baa sameeyay sallallahu alayhi wasallam meel ku sameeyay ma adu kitaabta mid daragtay xadiis حسن كأنك مثلاً إنك كهليجي وحالين قبل ما بقضي ومدعي وقرآن بكو آخرين حلوق لكن ما له البا حلوق قلام كوي وقت كستا ما حلوق قلام كوي حلوق قلام حتى وقت حديدا بو قلام هي قفك مركو انت تكور هيسيد ama ninka doodaya in masalada ka doodo intuu ka warhayo har sheego laakiin uu oran masaladaas ma jirto hadda imika inta aad ka warayso saxaafada kama warhayaano haddaan ku leeyahay laakiin saxaafada haddaan ku leeyahay kama dhigniso haddaan ku leeyahay saxaafada imika shuruudeeda ama shuruucdeeda xasan oo arrinkaasi kamid ma arrinkan aan garaneyn oo taa warkada qodobo kala jira oo banaynaya arrinka ku wadiga helaysa waxaan ku ogahay marka masalada xeerarkii dima garanayaan saxaafada marka xeerar aanu idinka aqoon badanahay ama wadaadada xataa diidiya uga aqoon badanahay in la yiraahdo sida ma aha qadcan laga dhigo taalafteedu oo bas macquul laakiin waxa uu sheegayaa taa'imka aad sheegtay rasuulku sallallahu alayhi wasallam xabaalatiisa horta haday tahay habeen walba kowda habeenimo wuxuu aaday xabaalaha kowda habeenimo Aisha waxay warinaysaa xadiis saxiixa Bukhari iyo Muslimka rasuulku kaana yasuuru ashaab al-baqi' wuxuu nabigu booqan jiray habeen walba sulusuleyl niska dambe oo quraanku soo akhriyo jiray oo barta kula soo munaajoon jiray oo Ilaahay u bariyo jiray rasuulka habeen walba sallallahu alayhi wasallam kooda habeenimo habeen kasta gurigeega jooga bay leedahay Aisha ummul muuminiin radiyallahu anha xabiibki marka habeen walba kooda habeenimo qabriyadii ma guureynay qabritigiisa horta wata maalin uu tagay habeenimo tagay
takale in xoolo loo qalo ama in waqti loo sameeyo rasuulku khadiija waxay Aisha wadiinaysaa in maalin walba markay sanadkii ay ku beegneed ay xagga Ilaahay aaday Ilaahay oofsaday khadiija bint Khuwaylid umuna in uu rasuulku xoolo qalayay dariskeedii iyo dadkii ay siqaaneen u yeeriyay u siinayay iyada oo sadaqa u niyoonayo kadibna uu lahaa uga warramay hadana taariikhdeeda khadiija sidana yahay ilaa ay gaadhay inay Faaduma Aisha macnaheedu inay ka masayrto ay tiraahdo rasuulka Ilaahay qaar ka dhalinyarsan kugu bedelay qoftana xoolaha u qalayso waqtigeedii aad cayimayso sida ugu dadaalayso danigada anagii baa joogno 15 ilaa heerka oo rasuulkuna markaa yiri sallallahu alayhi wasallam arag sidaad madima rasuulku uu ka xanaaqay kaleeda marka rasuulkii baa waqti u sameeyay xabaalahoodii tagayay xoolo ku qalayay waa xadiis iyo aayadkuba cadeynayaan inaan cilmi u lahayn baa diiday oranaya ala dekada taas cibaadad ka dhigtaan ma soconayso waqti uu sameynta khalada mar dhinac ugu boodaya mar wuxuu oranaya waqti uu sameynta khalada mar wuxuu oranaya xoolaha lagu qalaya khalada mar wuxuu oranaya inaad booqataan baa khalada intiina nabiga ka sugnaatay xoolo ku qalay uu booqday habeen iyo maalin waqtigu u sameeyay maxaa la yeelaya waxyaabahan ka duwanya waxa kamid ah mawlidka oo kale Allahumma salli wa sallim alayhi maxay iyagu diidan yihiin maxaa idinku waafaqsantihiin oo mawlidka baneynaya اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم horta kala aragti doonaan waligeed buu jirtay wayna jiri doontaa wax dhamaanayana maaha laakiin masalada mawlidka hadan si kooban ugu soo dhawaado bari dhexdeeda dood waa daawatan maleynaya anaga qodan salfiyada aan qabanay dhalinyaro aan isku eejahayn masalada waa la arkay sida loogu kala guuleystay waan lagu kala baxay wada cadana la kala maray cidii diidanad iyo cidii ogolayd rasuulku sallallahu alayhi wasallam in loo xafladeeyo in xoolo loo qalo loo sadaqeeyo in rasuulka sallallahu alayhi wasallam laga sheekeeyo intuu waqtigii nabiga dhacday sallallahu alayhi wasallam in quraan ka sheekeynay nabiga siiriisa laga waramo in gabaya la akhriyo waxa jira asxaab dhan oo asxaabta nabiga kamid sallallahu alayhi wasallam oo la oranayay shu'ara rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam gabayaashi nabiga gabayga waa banaan waa sax sheekh laakiin in la xadreeyo oo saan loo digriyo oo waxa weey saan la isku ruuxo oo la jiboodo hadana dumarku meesha ay joogaan qaarkood waxay ugu dhaliilay inaad dumar xataa meesha ay joogaan ku dhabay taas saxna ku dhamay in horta nabiga gabayay lagu amaanayay oo shucara gabayay oo lahaa nabiga lagu amaanayay sallallahu alayhi wasallam hadradan aanu xadreynay iyo waxaan aanu akhrinay gabayba oo badan ba nabiga lagu amaanayay sallallahu alayhi wasallam taas weeyna waan isla fahanaysaa in rasuulkii sadaqa inta la bixiyo dadkii masaakiinta la qoodiyo ama rasuulku bixi ama naftaada ka bixiye iyadana way isla garanay wadci mudaamada inay tahay wax sunna ah in dadka wax loo qalo wax la siiyo soo islaamayna garan waxaynu isla garanay oo kale tan leedahay dumar iyo rag ba isku dhex jira bisalida dooda dhexdeeda xataa idankiiba kaga jawaabay ustaad maxamed ha wuxuu yiri soo ka suuqa imika bal dhex socda la dhex socda gari waa noqoto hargeysa ha noqoto magaalo kasta oo Soomaaliya degto suuqu waa jaam rag iyo dumar ba is dhex soconayaan xafladaha imika ihtisaam xataa sheegayso shir ay ku qabsanayeen waan ka hadleen waan duubay meeshii loo leeyahay Nairobi ay u bixiyeen ansaar sunna waxa ku wariyaan tiin waxa weeyaan xaraamun alayka wa halaalun alayya ana waa iga adigana waa ka xaraana way banaatay meesha kidin ayagu maxay dhigtaan ansaar sunna shir ay leeyihiin dadkii muslimka dhan baa lagu mideynaya oo iyaga u gaaraha halka ma digriyaan ma xadreeyaan oo digrigi xadrada ila asxaab ma digrigi xadrada asxaabta baynu isla garanay inay dhigayaan ma ku laakiin waxa weeyaan tan ka jawaabaya rag iyo dumar bas dhex fadhiyay ansaar sunna rag iyo dumar bas dhex fadhiyay maxaa yeelay shir kasta ay qabanayaan hadda waad arki doontaa waad baari kartaa ragina way joogan dumarkina way joogan marka taasina ma halaalun calayha wa haraamun calayka okay dhinaca aqoonta culimada qaadiriyada ama xirta ama kuwa kala qaniraan waxa la dhahaa xagga waxbarashada manaahijta cilmiga diiniga ah waana kaga horeeya adduunka maanta teknolojiyada casriga oo gaaray horumar baa la maray wali ma isku aragtaa inaad joogtaan qarni fog ma isma aragno adiga laftaa in aadan aad u buuxin baa malaynaya laana maxaa yeelay waxa iyagu afkooda ka cadeeyaan dadkuna ay og yihiin cid kastaana ay og tahay ninka cilmiga leh horta ninka cilmiga lahayn ma sinaa iyaga arday noo ah dhamaan raggan saamad sheegaysa ama salafiyad sheegaysa ninka wuxuu sheegay inuu soo mar eelo duruq ragga wax ka soo akhristay umul ragga imika ugu cadcad kamida waxa uu sheegay inuu zeeliciyaha inuu dariiqo soo maray inuu cilmiga ka soo akhristay ninka markii dambe caasi ku noqday cilmi inaan lagu wada hadlayn wadaadada dambe iyo wadaadada hore iyada way cadahay
ama jaamacada keena ama manaahij keena ama carab keena ama cadaan keena cilmi inay naga daba dhufanayn oo la kala cilmi badan yahay fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun hadayna ninku garanay kuwa garanaya weydii hadayna ninku garanaysan oo kala cilmi badannahay oo aad media bahad media inaga yar badan yihiin oo aad wadaan media inaga yar badan inay naga cilmi badan yihiin taanufkeeda waa gaabis sheekhdama media waa sax in media aanu ka gaado in media ka ay naga badan yihiin laakiin tiina maxay faa'iideysay dib iyo dheef horta media laftiisu uu leeyahay inka laftiina waa seef laba afle waxay faa'iideysay inta iyagu media ku mashquulsan in aanu kitaabti kala gurno oo maanta masaa'ilkii iyo kitaabti anagana la weydiinayo oo aanu anaguna xaqan kala gurno iyaguna ay xaqan kala gurno inta kaamirada hor badiyeen cilmigii baanu kala gurayna anaguna waayahay haddii la isku waafaqo in dhaqamada qaarkood aysan ku jirin sunnaha rasuulka sallallahu alayhi wasallam diyaar ma u tihiin in aad ka tagtaan dhaqamadaas wixii allaale wixii aan waafaqsanayn hadiyii nabiga sallallahu alayhi wasallam ama xadiiska waafaqsanayn ama quraanka waafaqsanayn ama ijmaaca waafaqsanayn ama salafkii ummadan aan waafaqsanayn khayrna aan u lahayn ummadan intaan aan waafaqsanayn fali tafadal mashkuuran hanoo sheegaan ha yimaadaan hortayada ha ka sheegaan annaga diyaar waan ka qancinayna wixii aan isla fahnay inay annaga ku khaldanayna waan ka noqonayna bini aadan al insaanu khada ma ya ugu dambeyntii garwaa timid muddo joogtay culimada waa la kulantay Puntland waxa ku soo aaday xilli dagaal ay kula jirtay Daesh oo madaxweynaha Puntland Saciid Deni oo ilaa hadda ugu maqaya Boosaaso oo markii labaad uu noqday culimaduna aad ay uga dhowdahay dhinaca la dagaalanka kooxaha xajirka masha Allah mowqifkiin ku aadan dagaalkaas Daesh fikirka khaldan waa mahadsantahay xasanow arrinka madaxweynaha waa ugu hambalyeena fikirkayga iyo waxaan ka aaminsanahay ma wax imaka kaliya aan sheegaynay waa wax markuu bilaamay aan sheegaynay rag badan culimada kamid ah waa dugeedeen inay ka hadleen oo ragayga culimada hore Sheekh Abdulqaadir ha noqdo ninkii loo dhigay qoreer sheekh kale oo arkay mashaayikh badan baa ka hadashay mowqifka aan ka taaganahay wax weeyaan mowqif hadal ummad bartay ka taagan tahay group kasta ama culimo kasta ama cid kasta cilmi ku soo dhex gabatay laakiin group argagixisa ah oo dadka iyo dalka iyo diintaba u did ah ku dhibaato ah oo waliba diin ku soo gabanaya waxaan leenahay ilaahay inuu ummadda ka qabto madaxweynaha iyo ciidanka qaranka iyo ciidanka Puntland arrinka ka howlgalay waxaan leenahay ilaahay inuu ku garab galo madaxweynahana si khaas ah ugu hambalyeena waliba anigu waxaan gurubadan argagixisada iyo baaristooda iyo dhikoykan waxaan ka haystaa shahaadooyin dadka culimada ku soo gabada magacyada kala diisan samaysta talooyin badan in madaxweynaha ka siiyo biidnillahi kariim uguna hambalyeeyo waa reebay madaxweynihii isagoo kaliya ka maqan baa nasiib darro imid insha Allah inaan inta in ka badan aan uguna hambalyeeno wixii talooyin iyo tusaale aan ka naqaan gurubadan argagixisada ragga ugu aqoonta dhow baan nahay waan filayaa si dhowna ay aan wada socono in og yihiin micnihii aqoonta iyo sida lagu hortay karo oo ay kamid tahay aan barta fariinta aan marinayo waxa madaxweyne horta si khaas ah inaan iskaga aragno ugana hambalyeeno waan jeclaa ta kale wax weeyaan fikirkii gacan ahaan waa lagu la dagaalamay waana laga adkaaday laakiin qaybtii tafkiik الفكر المتطرف oo ah fikirka in lagu la dagaalamo qayb aqoonaysan malcaamadii iyo madrasadii iyo iskuuladii baa fikirka qayb kamid ah weey uu ka dhisan yahay in fikir in xagga aqoonta lagu la dagaalamo oo fikirkii wixii uu aaminsanayo dhan la meesha laga saaro ayaan iyadana aan waxyaalahan doonno madaxweynaha kala talino oo awalna kala talinay biidnillahi kariim ilaahayna aynu ku garab galaan leenahay aad baan ugu hambalyeynaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni waxaan kale u rajaynayaa biidnillahi kariim doorashooyinka soo socda in ilaahay uu ku guuleeyo haday noqoto federaal haday noqoto meel kasta in ilaahay ku guuleeyo aan rajaynayna madaxweyne aad baan raali kaaga nahay soo dhawow mar kasta iyo meel kasta ayaan leenahay biidnillahi kariim inta in ka badan madaxweynaha aan talooyin iyo tusaalooyin arrinka ku saabsan aan siino aad marka arrinka aan ka aaminsanahay iyo mabda'yigu waa ka okay marka waxa jira kooxahaasi dhalinyaro ay aqliga ka xadaan oo ku biira waliba ma arag dhalinyaro ka tagtay fikirkan ay aaminsan qaadiriyada iyo culimada kale oo kooxahaas ku biira waxay taa dhalinyarta ugu badan waa run fikradan argagixisada iyo Daesh noqdo ama magacyadooda kala gedisan ha noqotee galaha waxay u badan yihiin dhalinyaro ay malcaamadaha iyo madrasadaha
iyo iskuulaadka ay ku soo tababareen oo fikirka macallimiin faafinaya ay hoosta ka soo dhiseen waxa qaadiri ama ahl sunna wal jamaa looga waayay arrinka oo ay dhalinyartooda uga soo dhex muuqan waayeen argagixisada iyo gruubada noocaas marka hore aqoonida laga dhisaya dadkan cilmi ahaan bay u dhisan yihiin ruuxiyan bay u dhisan yihiin waa dad markooda hore ilaa madrasad ilaa macahad ilaa jaamacad diintii xaqayda dhabkayd loo dhigay aan ahayn isqarxinta nacaybka ummadda buqdiga iyo waxaan keenaya in qofku ummadiisii u arko cadow u arko marka waxa lagu kala tigay cilmiga iyo macallimiinta lagu kala tigay